Suldaan Saleban Ismaaciil oo ka mid ah salaadiinta faca-weyn ee Soomaaliyeed oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Borama ayaa ka hadlay dhalinyaro lagu xiray xabsiga dhexe magaalada Borama. Suldaan Saleban Ismaaciil oo ka hadlay xariga dhalinyaradaasi ayaa waxa uu ku tilmaamay shirkan jaraa'id aanu qabtay waxaan leeyahay kolka u horeysa horta dad baa dhintay dembi maaha dhalinyartaasi ma dambaabin wax ceebana ma ay samayn sida wax u dhaceen haddaan tilmaan ka bixiyo ST oo cadhoonaysa waxay soo gashay Borama iyo dila yay soo gashay iyadoo wax iska caabinahi jirin waxay doontay fashay waxay doontay dishay sidaasay iyagu ku dhamaysteen halka hore waa sida xaalkeedu dabeed waxa ka dambeeyay nabadayn lagu qabtay burco meelo badan oo kale lagu dhintayna waa jireen oo Soomaali oo dhan way isku wada dhimatay waqtiga nabadayn baa ka dambeysay burco lagu qabtay wixii hore aan iska dhaafno dawlad dhisano wixii lagu heshiiyay waxaas booha Suldaan Saleban Ismaaciil oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale uu sheegay in xukuumadii kala dambeeyay dalka soo maray ilaa ay hadda ayna ka helin gobolada galbeedka Somaliland saamiga xukuumadaasi ay ku lahaayeen goor walba waa cabanaa sanad walbana waa hadalaa madaxweyne kastoo yimaad waa la hadalaa weli saamigii aan ku lahayn kamaanu helin waad wada ogtihiin inaan dhawaan madaxweynaha la hadalay waa ka dhur sugaynaa wixii ka soo baxana waan sugaynaa dawladdii iyo wixii soo dhacay horta waa sidaa halkaa dabadeed waxaan leeyahay barasaabka iyo maayarka iyo ciddii kale ay khusayso wiilasha halay soo daayo gacantana halayga soo saaro iyaga wixii waanaan odhanayaana waxa weeye waxa la yiraahdaa ninan ku furayn iyaanu ku rarin waanadeeduna waa intaa weeye Suldaan Saleban Ismaaciil ayaa waxa kale uu beeniyay warar been abuur oo maalmihii ugu dambeysay mareegaha online-ka lagu qorayay Suldaanka oo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri maqlay dhawaan xaalka maxaa laga bixinayaa xaal ma jira waxa la yiraahdaa suldaanka xaal bixiyay suldaanka xaal bixinaya suldaanka maxaya suldaanka lacag qaatay waa badneed waxaas weligayba waa nagu dhici jiray weligayaan nagu dhici jiray waxaas gocusna lagu dul goosanayo waxna mara maaha waxa noo dhalanayna maaha waxa weeye dhalinyaro xidhan iyo dibad joogtaba hadda ka hor dalka anaga ka soo talinaynay weli ma aanu dhimanay nala tashada markaad wadlamadaan nala tashada Maxamed Xasan Ismaaciil Bere telefishinka Real عاصمة الجبل كاودل Borama.